waxaway cilmiga badan baad haysataa kowdha laakiin isku ceeban baan ku oran lahaa. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada youtube channelkayga Aliya Umar Official. waqti dheer baa guddoomiyay youtube-ka, waa ka mashquulay laakiin wax badan ka bacdi mashquul badan ka bacdi way kana soo laabtay. maanta waxaan wada video waxa weeye dilemma ama ila tali ama sheekooyin inaan ila wadaago, waayo badana waxay ugu dhahdeen markaan weydiiyay maxaa rabtaa inaan soo geliyo oo fikirkiina aan weydiiyay badana dadku waxay dhaheen ila talida. soo talooyin waa la isoo dirsaday inkastoo aan perfect ku ahayn ila talida, laakiin qofti perfect ma jiro, just fikirkayga. السلام عليكم، kusoo dhawaada video cusub. sidee tiim fiicantiin? ana alxamdulillah fiicanahay. maanta waqti dheer ka bacdi oo soo laaftay way kan marka maanta videogan wada waxa weeye dilemma ama ila tali ama qiso qof ku dhacday oo in la wadaagayo. marka waa in weydiiyay maxaa rabtaa inaan soo geliyo, maxaa fikirkiinu yahay. marka badanaa dadku waxay soo qoraan ay ila tali ama dilemma ama fikirkaaga video ah soo samee. marka videogana waa kan marka hadal badan yaanan gelin, sheekada aan galno. let's go. sheekada koowaad baan ugu dagalayaa ama qisada koowaad wiil baan ay soo qoray. marka qofka magaciisa ma sheegayo because qof markii soo qoray magacayga ha ku darin buu dhahay. wiil baan ay soo qoray waxa uuna dhahay aan wada soconay gabadh xiriir ayaa naga dhexeeyay muddo dheer, guur ayaan ku ballanay. guurkaas oo ay ka harsanayd bil ilaa 2 bilood inta u dhaxaysa. waalidkeeda waan isku kay ogaayeen, labada waalidba wax kastana way noo dhamaystirnaayeen. hadday noqoto aqalka, hadday noqoto inaan reerkeeda ka doono, waxa kaliya oo noo harsan waxay inaan aqal galno. alxamdulillah wax kasta sidii la rabay ayay noogu socdeen. maalin maalmaha kamid ayaa waxa ay dhacday, maalintii ugu xumayd ayaa waxa dhacday. gabadhii waxay aaday safar aan saa usii fogeyn. kabacdi safarkii ilaahay amarkiisa shil bay gashay. shilka markay gashay waxa ay juka noqotay ama ay dhaawac kasoo gaadhay jirka xagga hoose lugaha oo dhan. waxayna noqotay qof aan 6diisa lixaad aysan u dhamaystirnayn. say ahaataba wuxuu dhahay anigu ma aanan noqon qof 6diisa lixaad qof ku naca calaashaan waxaana ku dhacay gabadha aan ku naco, maadaama ay ahayd qoftan qof aan hore xiriir nooga dhexay jacayl guurda wax kasta aan qorshaysanay. uu amar ilaahayna na soo dhexgalay oo ah inay gabadhaas dhaawac noqoto. kabacdi muddadii reerkii way ogaadeen, reerkayga aniga i dhalay, wiilka dhalay aniga i dhalay reerka wiilka dhalayba waxa ay ogaadeen sheekadii gabadha inay dhaawac noqotay. waxaana awal u qorshaysnayd in la isku daro labada dhalinyarada ah oo la aqal geeyo. markaa kabacdi reerkii wiilka ayaa waxa ay dhaheen maadaama ay gabadhii sidaas noqotay, waan iska taqaanay Soomaalida, maadaama ay gabadhii sidaas noqotay anagu waxaan rabnaa hooyo gabar wax ku dhalaysa saas markaa kulama talinin inaad gabadha guursatid. kabacdi wiilku waxa uu dhahay anigu calashaan ma ii qof ku nacay qofka qadar ilaahay u keenay, waana qadar waxa keenay ilaahay baana deesh xanuunka xanuunlaanta ilaahay baa kala haya. marka wuxuu dhahay aniga ahaanteyda ma ku nacay qofka, laakiinse wiilka hooyadii ayaa waxa ay ku tiraa gabadhaas ma ku ogolin, maanta 2 qof la isku darana ma tihidin waana la isku kiindari rabay, laakiinse maadaama hadda uu soo galay arrinkaas ma rabno. sababaha kalifeen waxay tahay aniga maanta waxaan rabaa wiilkaygu inuu ilmo ii dhalo, sidaas ma fahantay. kabacdi wiilkana hooyadii keligii bay haysatay oo ilmo kale ma aysan dhalin, keligii bay ilmo haysatay. marka waxay tiraahdaa calashaan wiilkii aan adduunka ka eeganayay dee waxa rabaa aan gabadh dhamaystiran oo 6da lixaad alxamdulillah ah in aad guursatid hooyo, ani ilmahaaga inaan arko saas. marka wiilku waxa uu rabaa in lagala talinayay ama sheekada way ugu soo dir waxay tahay عشان دم محاسم يعمل قف أول لقيه أقول أو فملك يجو أجاين أي رالي إيجا أهاين رالي ناس كلا كاي أها لسكو كاي أوجا كور قرشي سناي بالأم بلا بالملاها وحكير أي نجارسي كور كيجي وحيجي ديار سناي قرش كيجي ديار سناي ومانت وصور حقلي أمر إله يقدر إله أو أكبر إن الشيل قشوا إن أي لحظة اللي حدنا كويد هالكاس بيان كجيتي كرا بس أمرك هو يدي أيان قاطع أو كتناسله وقعد عن كنوع لحظة اللي حد يدنا وحكي لما شاء أي أولين مركاني أهم تيدا هرت دت كنا دعوانا يا وحي تلاقوا كومنتي وكسو قرياني حكولة تلنيان لكن أنا أهم تيدا علي هان تيدا حكولة تلنا وحي تاي والد كاس ريسنا ودي دين متشرتو
duu qofkaas wuxuu qaba ma jirto lixda lixaad haddii waayana ilaahay isaga ka haysatid hadda adiga lixda lixaad wiil ahaanta uu kaa qaadi karaa hooyadaabuu ka qaadi karaa iyadana ilaahay wuu caafin karaa waa ilaahay waxba lama aha waxaasi laakiinse aan ahaanteed waxaan kula talin lahaa aan horta meesha haddii amar waalid soo galo way adag tahay sida looga tanaasulo ama looga tago laakiinse waxaan kula talin lahaa qof dhexdiisa lixaad laguma naco hooyadaana dariis inay kugu diidaysa ma jirto waxay kugu diidaysaa un lixdeeda lixaad bay laadahay dee dembina maaha haddaa guurtid maanta waalidka haddaa kaga hortimaadid ama taa ku khilaaftid dembi aad waalidkaa ka galaysid ma aha oo ilaahay kugu caroonayo hooyada amarkeeda aad diidayna ma aha markaan wax kula talin lahaa waad guursan kartaa aad wax kuu diidayna ma jirto haddii ay dee tahay waalidkaygana ma ka khilaafi karaan dee taasna sheekhyada waaweyn ba ula tegi karta waxaa sheekhyada u waraya hadday waalid diidmadiisa halkaas timaado laakiin sida kale aan ahaanteeda ahaa waa kuula talin inaad guursatid fikirka shacabkana kuusoo qori karaan markaa qisada labaad ayaan gudagelayaan qisadii koowaad halkaasi ku tagtay ta labaad waxa ay ku saabsan tahay laba gabdhood oo saaxiiba oo ku nool dalka Turkiga waxa ay dhahday gabadha tan waxa aan gabar saaxiiba ahayn oo best friends isu dhow ayaan gabadh ahayn waxa ay la socotay wiilka markay la socotay waxa aan qisadii koowaad halkaas kaga gudbaynaa qisada labaad baa dhexgelaya qisada labaadna waxay ku dhacday laba gabdhood oo saaxiib ah marka gabadha aniga sheekada ila wadaagtay ayaa waxa ay tiraahday waxaan nahay laba gabdhood oo saaxiib ah oo ku nool wadanka Turkiga waxaan nahay laba gabdhood oo saaxiibo isu dhow saa'ida wadankiina la isku kala yaqaan familkeeguna ay isku kala ogaan inaan saaxiibo nahay waxayna wada yimaadeen dalka Turkiga si ay wax u bartaan labaduba dalka Turkiga isla yimaadeen oo labada family ay u soo direen waxa ay tiraahday dalka Turkiga marka aan nimaanay ayaa waxa isbaranay wiilka xiriir baa naga dhaxeeyay muddo aad u dheer kabacdi wiilku wuxuu ahaa dadka balwada leh nolosha aan micno u lahayn calaashaan noloshana hadaf iyo waxa kala hayn ayuu ahaa balwad bas isticmaali wax kale aan qabanaynin calaashaan waxbarasho aan u soconin noloshiisa daryeelaynin waxa ay tiraahday anigu ma aanan la talin calaashaan wax ma ku darsanin waxa ay tiraahday markaan arkay qofkan inuu balwad leeyahay aan muddo jeer ku dhahay iska daa balwadan uu maqli waayay ayaa waxa dhacday hooyaday ayaa waxa ay igu ogaatay inaan wiilkan isla socono ayay ogaatay hooyadayna waa u sheegay aan marka ay weydiisay yaa way wiilkan noloshiisa uga sheekeeyay kabacdi way waxay ogaatay wiilkan inuu balwad leeyahay aan waxba baranin de nolosha aan waxba qabanin shaqayn waxba qaban kabacdi hooyada waxa ay kula talisay in ay ka hadho wiilkan ama aan ka hadho wiilkan ayay tiraahday oo aan wiilkan la sii socon karin mustaqbalna de warkiisa badaa calaashaan ka hadho wiilkan baa lagu dhahay maadaama uu qof balwada leeyahay noloshaan rajo ka lahayn caynkaasa ka hadh okay bay tiraahday maba isku daalinba bay tiraahday waxba ma sii dhagaysan qalbigayga lama tashan wiilkii ma la talin waxba ma sii firfirin okay amarka hooyada ayaan qaatay halkii aan wiilkii kaga hadhay muddo saa'ida waxay kasoo wareegtay gabadhii saaxiibada iyo wiilka ayaa iyaguna isbartay oo si asxaabtina gabadhu saaxiibadana wiilka igu ogeyd markii hore laakiin iyageena caadi isu sii dhexgaleen si aanay awal isu dhexgali jirin ayay isu dhexgaleen waxa dhacday gabadhii saaxiibada inay wiilkii ka heshay kabacdi ay maalmaha kamid markii kasoo wareegtay adigu sanad meelaha ay igu tiraahdo dee qof yahay xabadkii waa kala hadheen anaan hadda ku haysta khalad miyaa u aragta haddaan qofkan aan jaanisi ama haddaan la sheekaysto wax khalada miyaa u aragta midabaa saaxiibaday tahay may bay tiraahday baan dhahay calaashaan wax khalad anigu ma arko waa la socon kartaa qofkaas waqti dheer baa kasoo wareegtay xiriirkayga qof aan rabana ma addi amarka waalidkaygaaba ka weyn xiriirkayaga okay bay tiraahday labada gursiba saaxiib u ahaayeen way u fasaxday okay bay tiraahday jaanis bay wiilkiisiisa gabadhi kale way isbarteen gabadh kale heer waxaa bilowday markaa wiilkii ay noloshiisa bedesho ay la taliso balwadii ka dayso tiraahdo jiim bilow waxbarasho bilow shaqo codso calaashaan wiilkii ay noloshiisa update ay ku samayso ay bedesho muddo badan wiilka waxay la talisay wiilka noloshiisa way isbedeshay waqtigu isku lumayay jiim buu bilaabay shaquu helay waxbarashadiisii buu watay calaashaan wuxuu noqday qof nolosha higsanaya oo nolosha higsi kale oo isbedel jirkiisii hagaajiyay balwadii iska daayay shaqo haysta waxbarasho haysta shoorkuurka caawashan baabuurka wadidiisa qaatay laysanka qaatay kabacdi waxaa tiraahday maadaama kabacdi markii aan arkay bay tiraahday dee faaraxa inay nolosha usoo kala kacdo uu noqdo qof shaqaysanaya baabuurkii haysta
balwadii iska day de noloshii hadaf ay u yeelatay oo nolosha hiigsanaya ayaa waxaan bilaabay inaan anigii gadaal u qoomameeyo ama gadaal u gocdo calashan waa qofkan uga tagay anigii aan ciil isbado oo aan heer gaaray ay noqoto in xaggan saaxiibadii la hadli lahaa aan suuqa u geliyay saaxiibkii bay iga qaaday waa isla soconay calashan aniga gabadhii khalafna soo dhex galo oo anaga aan halkaas ku dhacno wiilkiina af aan ugu tago oo aan kula hadlay de meesha ma yaala maadaama saaxiibaday isla socdaan ay gabadhiina aan iskhilaafnay aniga ahaantayda maadaama aan ka hadlay waxaan arkay gabadha wejiga ii bedeshay oo si kale ila dhaqmaysa waa weydiiyay tirad maxaa kugu dhacay calaa kulli xaal anaga halkaas isku khilaafnay madada saaxiibtinimada halkaas ku dhamaatay hadda muhiimadda marka waxay taagan tahay oo lagala talin waxay tiraahday wiilkan gabadha tan dad guur qorshaystay way hadda 3 sano isla socda xiriirkoodii u fiican yahay isagii noloshiisii bedelay qof nolol hadaf hiigsi la shaqo haysta nolosha damaanta heer fiican ku nool oo wax ka maqani aanay jirin ayuu noqday anigiina dee maanta qofkii ma heli karaan marka waxaa lagala talinayaa ay rabtay lagala talinayaa ay tahay Faarax maxaan sameeyaa ma u tagaa wiilka oo ma waca oo ma dhahaa dee waan ku rabaa mise ani ahaantayda walaa waxaa kula talin lahaa aan horta qof duruuf laguma naco mafahamte qof waxaa lagu nici karin waa duruuf mafahamte qof wax kaloo ku nici kartaa aragtidiisa waa ku nici kartaa qof aragtiisa waa ku nici karta haddaanu dooqaaga ahayn laakiinse qof duruuf laguma naco because duruuftu de waa maantana way joogtaa dee manidii berina way tegaysaa ay mafahamtay marka laakiinse ahaataba adi ahaantaada duruuf waa ku nacday ana waxaan kula talin lahaa abaay macaane ka gudub qof kala baran kartaa adduunku waa badan yahay 100 nin baa ku nool isagu suu helay gabar fiican baa adiguna helaysaa wiil fiican oo dee nooca raadinaysa markaan waxaan ku dhihi lahaa isku ceebaynin saaxiibadan awalba adaa u fasaxay dee oo dhahay dee Faarax waa u gudbi kartaa markaan waxaan oran lahaa maya tala ahaantayda dadka kalena fikirkooda hoose kusoo qori karaan marka walaal macaana qof aad duruuf ku nacday wallahi billaah de oo already eriday ba aad tiraad walaal waxaasan kugu nacayaa oo qofkii aad horta qofka xiriirkiina haduu xumaaday xitaa waa soo ceshan kartaa ma fahmaysaa laakiin qof aad duruuf ku nacday oo hadda wixii ka gudbay marxaladda ku sugnaa in aad soo ceshatid ma malayn isagan ba ka yeeleen taadi xitaa hadda isku daydid wallahi isagan ka yeeleen quruxaba aaminsanay 100% because adiga maanta qof duruuf kugu eriya yani maanta qof duruuf igu eriya haduu bari loo soo laabo تقبل إراديات هاي عمل حكار ليسا رغف ظروف ونعي إنه أكون على إنه كوصلها ولا ما آمن سني لكن والله بالله قف كلات هاي وحبت تعقد يا Faarax قال لي سو إدبيد دقنك على صبر مركي بالود لقى صوتشر أو ناقدن أي حاجات ستة أو إدبيستين أسوي عشان تعرف ولا عليه معانا محا قفنا أو أنت إرذي أو ظروف كنا عذي markii ay naakala edbisatay oo hagaajisatay oo dhaqan u yeelatay oo nolosha ay tustamicnaada miyay rabtay soo ceshatid waxa way cilmiga badan baad haysataa ka wada laakiin si isku ceeban baan ku oran lahaa ka tanaasul qofkaas asxaabtana idin wada tiradina la soo wada gabadha walaasheena arjeeniyaan fiidowna keeshaan oo inay noqdo fiidow inay qanciyo insha Allah YouTube kana sharaf fiidow soo badinaya aan وحي فكر كنا عن يسوق على الانستغرام كدارتي في يسان كلا إلى الترينا يسوق إن شاء الله انستغرام كان رعد قلن شذيذا ما كي قاد قلن شذيذا حسكا قبيل قلن شذيذا أنا نوقر قلن شذيذا قد رعد قلن شذيذا